الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حمدا لله. إلهي بكم هذيننا صلاة الظهر جمع نقص وقيب قليل والله علماء مساجدك ayaa naga dalabtay kelmad inaan sheegno. salaadii duhur markaan ka baxnayna kulligan wacdi baa laynoo jeediyay haddaan wax ku qaadanayno, wacdi dhammaystiran. wacdigaasi muxuu ahaa? janaazaan ku tukannay, salaat aljanaaza xaadira. qof walaalkeena ayaa meydkiisii intoo la soo geliyey halkaa aan ku tukannay, deedna waa la qaaday. kafaa bilmowti waacida, waana waxa kugu filan waa geerida. wacdi waxa kugu filan waa meydkaa aad arkaysid. اغدوا فإنا راحون أو روحوا فإنا غادون، موعظة بليغة وغفلة سريعة، يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر لا حلم له. أبو ذر الغفاري الله رالك النقضي أيا جنازة مركب ميت وأركبه أورنجري لا عرابة أنا كنا وكسو دبك اللي دونا أما لك الله أبو أورنجري أنا كنا قلبته وما كذب إيمان دوناي وكسو دبا عرابي دوناي. موعدة بليغة وأنا حال درويان وغفلة سريعة. أذو كنت لقلنا جيرد ويكون إيمان إيسا. يذهب الأول فالأول مد مدك وكهر ريب وآخرة وكهر رينيا. أجل بالله دينتا يحنون الله مردينتو، قاجنا الله مردينتو، حبنا الله مردينتو، وحلو دمنا يا وأجل ويان وأجل. لن تموت نفس حتى تستكمل آخر رزقها. نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها نفنا ما دمانيسو أدوية كبح ميسو إلا أرزاق ديد أنت قدام بيسيد دميستر تمو يعني. ميتك أن كنت كنيبا إنه قفل وعدي هذا دتكو أي وحكو قادنا يا المانت. والله صعدا حق الله صعدا ماشي رنتا هيد الله صعدا ماشي رنتا هيد. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلهي بأنه شيء naf walba geerida waa dhadhamin baa ilaahay yidhi, waa dhadhamin.
waxaad duubaysaan iska daayo dhegaysta uun ha ciyaaloobina halkan wacdi waayaan waxa laga hadlaya waa wacdi waxa lagugu baraarujinaya waa aakhiradaadii waxa lagugu baraarujinaya waa hadafkii adduunyada lagu keenay waxa lagu sheegaya lagu tilmaamaya waa meeshaad u socotay runta ahayd weeyaan marka qalbi wax weelaya allah ina siiyo naf walba baa ilaahay leeyahay geerida waa dhadhamin camalkaad adduunyada ku soo shaqaysayna aakhira laynaga abaalmarin doonaa halkan wixii adduunyada aad ku hadlaysay waa la qoraayey waxaad samaynaysay waa la qoraayey maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid bini aadanka afkiisa hadal kama soo dhaco ilaa waa la qorayaa wawudica alkitaabu wajii'a biاnnebiyiina waashuhadaa maalinka qiyaamaha kitaabkaa la soo dhigi doonaa kitaabka maxaa ku qoran maalintii aad qaan gaadhay ilaa naftu ay kaa baxaysay wixii aad eegaysay wixii aad cuntay waxaad ku hadlaysay waxaad dhegaysanaysay meeshaad tagtay saad u socotay wixii oo dhan baa lagu soo qorayaa lagu hor dhigi doona qiyaamaha iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba ilaahay baa ku odhan doonaa addoonkan oo kitaabkaaga adigu akhriso halka ula baxo adigu akhriso adigaana isku filana cid ku xisaabisaba uma baahnide adiga unbaa miisaanka isa saaraya oo isa soo caddayni doonaa ma naar baad u qalantaa mise jannaad u qalantaa faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljannata faqad faaz ilaahay baa yidhi qofka naar laga badbaadiyey ee janno la geliyey kaasaa liibaane baa ilaahay yidhi xaqiiqadii kaasaa liibaane naar allah inaga badbaadiso aamiin dhahda jannadana allah ina geliyo allahu akbar daci اlayaama tafcalu ma tashaa waطib nafsa ida xakama alqaضاء walaa tajzac ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء maalin baa iman habeen baa iman kulayl baa iman qabow baa iman nolol baa iman geeri baa iman cabsi baa iman nabadgelyaa iman faqri baa iman barwaaqaa iman waa nidaam ilaahay adduunyada ugu talagalay waxaas in mar cabsi timaada mar barwaaqa timaada mar nabad la helaa mar la bukooda mar la caafimaada mar la dhashaa mar la dhintaa in ay dhalataa in ay dhimataa in fuqaro noqotaa in aghniye noqotaa undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacdin walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila eeg baa lagu leeyahay bini aadamka saan u kala sarraysiinay laakiin waxaa fadli badan baa ilaahay yidhi aakhiro darajaadka aakhira ninka hele baa fadli weyn helay walaalayaal daar alimtixaan baan ku jirnaa maxaan ku jirnaa daar alikhtibaar marka nolosha ilaahay baa kugu deeqay dhimashadana ilaahay baa kugu xakumay ogow meeshaad doontana joog waa dhiman maalintii lagu qoray inaad dhimato unbaad dhiman 120 habeen caloosha hooyo ilmuhu markuu ku jiraa malag loo soo dhiibaa ruuxda markaasuu ku afuufaa markaasuu malagaasi 4 buu u qoraa buu nebigu yidhi 4 buu qorayaa qofka ma labbaa ma dhidig baa habeenkaabaa la qori buu rasuulku yidhi ma shaqi naar ku dambaynaya mise waa siciid janno galaya habeenkaabaa la qori buu rasuulku yidhi fama risqu adduunka intuu joogo muxuu quudkiisu noqonaya habeenkaabaa la qori fama alajalu halkuu ku dhimanoo halkee lagu duugi habeenkaasaa la qoraa buu rasuulku yidhi marka waa dhimashaad u dhalatay waa inaad tidhaahdaa aniga haddaan dhinto ma rabbigay oo iga raallayaan dhimanayaa mise ilaahay oo ii cadhoonayaan dhimanayaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam siiradiisa noloshiisao dhan waxaan ka fahmaynaa meesha muuminku adduunyadu maaha meesha muuminku ku raaxaysanayo muuminku meesha ku raaxaysanaya waa jannada weeyaan meesha muuminku ku raaxaysanaya waa jannada الدنيا سجن المؤمن
وجنة الكافر بو نبي قولي الدنيا نيكا مؤمن كجيل بأوتها جيل نيكا جيل كجرا اختيار ماله حرية ما هيستو لكن نيكا جيل كجرا هم يجي سوقين وامحي قور ما جيل كاللي يجي دين دونا قور ما جيل كبحا تدك جالس كجرا همي كلام ماله تجارات كوها مني مايان أو قريب اسمه سكوها مني مايان أو جناع سكوها مني مايان أو ضاف يجور كوها مني مايان همي جوجوه القف كجيل كوحدا وقار ما جيل كبحاوي سادر تيد النبي يقول لي الدنيا مؤمن كواجيل كيسي واجيل جيل محله جدا الدون كأنت قف مؤمن كوجوجو معناه حرية دي سي سدو دونا ومسعون كرايو وحاو الدنيا دونا إنه كل سماء يمسمين كرايو وايو شريعة وقف مؤمن كلية شريعة وأرجع إلهي بكوسيي هذا أنا أرجع أوامر بوليه أوامر أرجع أوامر توليه ومحي وحايق بالجايد وحنا هيجي ما شريعة كل هذا هاي عرب إلهي بكوسيي شريعة وحي كل هذا وحاكو هذا وحنا أكو هاللي بكل هذا هاي مقل كإلهي بكوسيي شريعة وحي كل هذا وحا مقل وحنا مقل بكل هذا هاي علوش إلهي بكوسيي وحاسوا حلال عم بكل هذا شريعة وحنا وحرانها عن بكل هذا هاي سعود كإلهي بكوسيي شريعة صدا أسعى بكل هذا هاي صدانها أسعى بشريعة كل هذا هاي ولا تمشي في الأرض مرحا صداك متكبرين تهوسعون شريعة كلها سدي أسعوا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام بابا إلهي سدي مؤمنين توسعنا واسدي مال غفلة معصية لقوها يا هدي الصومران أيكم ما موسى وكرامة سبع دافان بابا إلهي شقاكو درسان معيان وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أحكامت عنده إليه هناك بصرك وأحكام بلي أحكام تسوى محي وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مسكيت قد حديد ماها وحا قضوا البصر كالله قاد دونا يو مساجد قد بدا مركز وقب بحضر الله دوني عندها قينا اللابتي وحي محرمات إلهي كحرمي أردن عندها كو إيجن لكن عندها محاكو إيج لقايري أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج صمد كو أقبل لقايري وآيات كان إلهي كو إيغو إلهي كو قرو سيدا قيل إلهي أبو رفيري سيدا بورها إلهي أبو رفيري سيدا بد الله أبو رفيري سيدا عرك الله جوجي فيري سيدا مخلوق الله أبو رفيري آيات كان إلهي كو أقبل لقايرو عبرو إيغ موياني عندها كان أذيكم ملي هيدا واحد وانتنا تكو إيغ تحر أمتي كان مؤمنكي مغل كي بين نغطي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والله يسوي دين دونا مغل كي ولا قوي دين وأرقي ولا قوي دين مالك قيامة قفل بالله ورسل دونا فبشر عباد الذين يستمعون القول بايلهد يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا الكوناك سنة مقشال لوجي ديي فعل كوناك سنة شريعة وقشة هذا رعدا لوجي ديي هذا الكحون شريعة إنكرتين أدكت هذا كله جيستنا لقوا ما قالوا لكن إنك وحنا لنا هاي ما أنت اختيار بان له خاصة اللي يردنا مركز ترى روحها هذا جيسن وروحنا داونا الشريعة ما قالوا اختيار بان له اختيار بان له مالك القيامة وحاتر على إلهي وأنه اختيار بان لها دهاكم بدبادسي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون من هم؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين اللهم اجعلنا آمين هذا يا عبادي
banka qiyaama maalinta la joogo ee qof walba gargaar iyo gurmad uu sugayo ayaa xagga ilaahay waxa ka iman doona iclaan ogeysiis oo la oran doona yaa cibaadi adoomahaygiyo laa khawfun calaykum alyawma walaa antum taxzanuun maanta ininka korkiin cabsi iyo murug midna ma saarno allah inaga dhiga kuwaas maalintee waa maalinka banka qiyaama la joogo يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وحير با ما أنت ضدك أدون قرن كي يبيوك قيلسي بنك قيامة كورما مالك قيامة كورما حالده سينو قدونتا maalinka qofku gargaar uu baahan yahay gurmad uu baahan yahay ayaa xagga sare iclaan baa ka imanaya oo la oranaya adoomihii ilaahay maanta iyaga dushooda cabsiye murugi ma saarno man hum wa kuwe alladheena aamanu bi ayatina wa kanu muslimiin wa kuwa adduunyada markay joogeen ilaahay bay rumaysnaayeen aayaadka ilaahay bay rumaysnaayeen janna inay jirtay garanayeen naar inay jirtay garanayeen xisaab inay dambaysay garanayeen imtixaanka adduunka inuu dhamaanayay garanayeen laakiin imtixaanka runtu aakhireen u dhacay bay garanayeen dadna adduunyadii bay ka soo sahay qaateen ilaahay bay soo raali geliyeen kuwa muslimiin oo toosan bay ahaayeenoo ilaahay u hoggaansan bay ahaayeen maxaa markaa lagu odhan doonaa udkhuluu ljannata antum waazwaajukum tuxbaruun yutaafu calayhim bisaxaafin min dahabin waakwaabin wafiiha maa tashtahiihi alanfus wataladu alacyunu waantum fiiha khaaliduun jannada loogu baaqaya ayaa kala odhan doonaa ininka maanta kuwa cabsoonaya ininka ma aha waayo adduunkii baad ilaahay ka soo cabsateen ininka abaalkiinu maanta waa janno allah inaga dhiga kuwaas quluu amiin dhahada adduunyadan waa daaru tacab baan joognaa daaru lcanaa daaru libtixaan weeyaan adduunyada waa imtixaan mar waa cabsi mar waa geeri mar waa bugtaan mar waa faqri mar waa abaar mar waa barwaaqo mar waad farxi mar waad murugoon daci اlayaama tafcalu ma tashaa waطib nafsa إida xakama alqaضاء walaa tajzac lixaadiثaة اllayaali fama lixawaadiث الdunya baqaa'u maalmahan adduunyada ee axwaashu ay la socoto ha eegin ha argagixine adu waxaad haysataa ilaahay xadhigiisa hayso amarka ilaahay hayso sunnaha nebi maxamed hayso inaad dhimato ayaad u dhalatee inaad noolaato uma dhalan jannadaadii halkan maaha qofka muuminka jannadiisu aakhiro weeyaan wixii ilaahay ku keenana ku raalli noqo ka faqriga loo qadaray faqrigiisu waa inuu ku raalli noqdaa ka caafimaadka la siiyey caafimaadka waa inuu ku raalli noqdaa ka awlaadda la siiyey awlaadda ilaahay waa inuu ugu shukriyaa ka awlaadda laga qabtay awlaad la'aanta waa inuu ilaahay ugu shukriyaa ka nabadgelyada la siiyey nabadgelyada waa ilaahay inuu ku gartaa ka cabsida lagu imtixaamay cabsida waa inaad ilaahay kaga cabsataa ka mas-uulka laga dhigay mas-uuliyadda ilaahay waa inuu kaga baqaa ka mas-uulka laga yahayna marxaladdaad ku jirta adiguna ilaahay ku garoo kaga baq bas noloshan adduunyadu wax daa'imaysa ma aha mayd baan ku tukannay beritoole innakana waa laynagu tukan ogow marka jannadeenni halkan ma aha jannadeennu way dambaysaa ilaahay baan adduunka dusheeda ku caabudaynaa ku adeecaynaa ku raalli gelinaynaa wixii ilaahay noo qadarana raalli baan ku noqonaynaa insha allah dhahada waxaa keliya mashaakilka adduunyada maanta ka dhacaaya mashaakilka adduunyada ka dhici jiray mashaakilka adduunyada ka dhici doona xalku waa sunnihii nebigeenna moxamed calayhi salaatu wassalaam maanta zamankan aan joogno dad aan islaamnimada xataa aan loo malaynayn inay islaamayaan qaarkood waxay ku islaamayaan xadiidkii nebigeenna uu yidhi haddaad maqashaan meesha taacuun baa ka dhacayna ha gelina meelaad joogtaan hadduu taacuun ka dhacana buu nebigu uhi ha ka bixina dadkii zamankan culumta maadiga yaqaana waxay leeyihiin 1400 sano ka hor ma nebi maxamed hadalkuu ku hadlay ayuu maanta caalamka ku dhaqmaya oo ku camal falaya mutacallimiintii yurub ugu aqoonta badnaa axaadiista nebigeenna markii loo sheegay bay ku islaameen
xanuunkan maanta adduunka lagu sheegayo ilaahay hay naga ilaaliyo amiin dhahada insha Allah dalkeena ilaahay noo keeni maayo insha Allah dhahada insha Allah dhahada wala reejibuuti ay la soo hadlayso muqdisho ka warano waxa ay muqdisho 30 sano imtixaan ku soo jireeno imtixaankan maanta adduunyada ka dhacaya insha Allah ilaahay yaka ka ilaalin insha Allah dhahada muslimiinta oo dhan Allah ka ilaaliyo amiin dhahada wa caalamka oo dhan Allah ka qaado amiin dhahada laana waa balaayo hadday timaado cid walba way saameyn kartaa Allah inaga ilaaliyo halkan soconay marka xukun القضاء والقدر وهلك مسلم يقالك كوكلا وعدان مسلم كواحد الله دونا يا وحي إلهي كيني رالي ما كنا قضاء أذو قدرك إلهي آمنسا ووحي إلهي كوكينا كرا ليا هذا الدين تينو وحي قبتا قفك بن آدم كوين والله ماذا احتياط وكان النبي قال إنه شيء إليه meesha taacun baa ka dhacay haddaad maqashaana ha gelina meeshaad joogtaan hadduu taacun ka dhacana ha ka soo bixina buu rasuulku yidhi mutacallimiintii reer yurub qaarkood xadiista nebiga sal allahu alay wasalam bay ku islaamayaan ay leeyihiin 1400 sano ka hor ninka hadalladaa ku hadlaayey ee maanta xadiiskii uu 1400 sano ka hor u sheegay caalamku u arkay xalka keliya ee xanuunkaa maanta la sheegaya lagaga badbaadi karo والله وحيد هذا النقاس النبي بوهاي بشر عادي ما هي أشهد أن محمدا هل قبل لقوا السلام يا مانتا فرح الكبا للي فرها مسكنا غمر والله هذا دتك وشيء يا وزارتها عافماتكو لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابتي سوحوا كيري هبينك مرقى تردد كسو كعدان وعوه الرياض قبطان هنقو بقعمين نغضب رسولك يري وهي حالي تولي قاعدينو ميلي بريدة كما ورقبتاني nin saxaabada la fadhiyo muslimiinta kamida ayaa qalbigu ka yiri hadalka nabigu waa iska yiri ma nin baa ka warqabin gacantiisu meesha xalay bariday laakiin hadalka ma inkirin carabka kama inkirin laakiin qalbiga ayuu yiri ma nin baa ka warqabin meesha gacantiisu xalay bariday habeenkii markuu seexday waagii markuu bariyay ninkoo qayliya la arkay qayliyaya oo cabaadaya waa la dul tagay waxaa loo yimid isagoo gacantiisii duburka intaa kula jira tiisii markaasaa laga soo jiiday markaasuu yidhi walaalayaal haddaad maqashaan nebi maxamed baa sidaa yidhi samicnaa waatacnaa dhahada buhi nebigu wuxuu sheegay waa run weeyaane hadda caalamka waxa uu leeyahy gacmaha dhaqda oo cadayda oo wejiga dhaqda oo biyo ku istinjooda oo nadaafadda ilaaliya nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhanba nebigu waxay inooga dhigay innaga waxay inooga dhigay shareecad buu inooga dhigay haddaad cuntada cunaysaan waxaa sunno ah in gacmaha biyo kor ka yimid in lagu dhaqo haddaad cunto cunaysid waxaa hadigii nebigeenna ka mida in 3 farood lagu cuno haddaad 3 karayna 5 ku cun markaa buu nebigu yidhi gacanta markaad cuntada ku cuntaana sidaa uga leefleefa buu nebigu yidhi uga leefleefa maxaa yeele jidhka bini aadamka difaac baa ilaahay geliya difaac xanuun walba kaa ilaalinaya biyihii baad ku meedhatay waa difaac baad ka helaysaa dhareerka jidhkaaga ka soo baxaya waa difaac weeyaan bisinkaad u qabatay bisinka dhan baa difaaco cuntadii jermiska ka laynaya cuntada weelkaad wax ku cunayso aqalada habeenkii markaad seexanaysaa weelashiina gembiye buu nebigu yidhi ama maaragtaane daboolo wax saara haddaad waxaa saartaan weydaan buu nebigu yidhi qori yar soo qaado mara ul yaroo cuuda saara buu rasuulku yidhi waa sunne aqal baa nebiga loogu sheegay reer madiine aqalkii baa ku gubtaa la yidhi wuxuu yidhi habeenkii markaad seexanaysaan dabkaasi waa cadowgiinniya iska damiye buu rasuulku yidhi waa hadigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam nolosha nebi maxamed uu inoola yimiday oo dhan waa nolol adiga ku ilaalinaysa caafimaadkaaga ilaalinaysa diintaada ilaalinaysa waxa uu nebigu noo jideeyey xataa marka la jiifsanayo dhinaca midig in loo jiifto soo sidaama caaisha radia allahu canha waa tii tidhi nebigu gacanta midig buu dhinaca saari jiray deedna ducadaa buu akhrisan jiray allahuma qinii cadaabaka yowma tabcaثu cibaadaka dhakhtaradoo dhan waxay leeyihiin qalbiga bini aadamka wadnuhu xagga bidix buu ku yaallaa ha u seexanine xagga midig u seexda xagga midig qofka u seexda caafimaadkiisa qofkaasi rajo fiican buu leeyahay
hadday cilmigooga aalaadkan maanta ay samaysteen ayay iyagu ku arkayaan walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cilmi alwaxyi ayuu nebigu noogu sheegayaa in habeenkii marka la jiibsanayna xagga midigta loo jiibsado markuu hurdada ka soo kacana waxa u horreeyu nebigu qaadi jiray waa maxay waa cadaygiisa cadaygu nebigu sidaa u qabsan jiray xataa maalintuu dhimanayey caaishu u dhiibay cadaygii uhi ii jilci buu ka yidhi afkana ii geli buu ka yidhi cadaygu muxuu laynayaa jeermiska jirhkaaga geli lahaa ama ka soo bixi lahaa buu laynayaa diin dhammaystiran ayaa ilaahay noo soo dejiyey inaan diinteennaa qaadanno ku camal falno oon barannoon ummaddeenna barnoon ka shaqayno taasuunba laynooga baahan yahay bas insha allah dhahda soo diyaar uma nihin inuu diinta barto uu diinta ku camal falo uu diinta ummadda gaadhsiiye ayaa u diyaara saddexdaas dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeenna allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaanba ciriiriga allaha ka qaado colaaddana allah inaga rafaco xanuunnada la sheegayna allah inaga ilaaliyo dadku ku dhacayna allaha ka caafiyo dadka u dhintee muslimnimada ku dhintana allaha u naxariisto gaaladana ilaaha waa addoommahaagii waa ducafaa waa masaakiine intii hidaayadda aad ugu tala gasheen ilaahu soo hadee wixii sharlana sharkiisa ilaahu naga qabo sala allahu calaa sayidina muxamed